wararka naga soo gaaraya magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug ayaa waxay sheegayaan in ciidanka Ahlus Sunna ay si buuxda ula wareegeen gacan ku haynta garoonka Ugaas Nuur ee magaalada Dhuusamareeb. ciidanka ayaa meesha ka saaray ciidamo isku dhafa oo dhawaan la geeyay garoonka diyaaradaha magaalada Dhuusamareeb, kuwaasoo isugu jira booliis iyo military oo ka kala socday ciidanka Ahlus Sunna iyo kuwa dowladda. wararka qaar ayaa waxa ay sheegayaan in maamulka Ahlus Sunna ay diideen in ciidamo hubeysan oo ka socda dowladda dhexe ee Soomaaliya la geeyo magaalada Dhuusamareeb, taas beddelkeeda ay amniga magaalada ku sugi doonaan ciidankii dhawaan la qarameeyay. hogaamiyaha Ahlus Sunna Macalin Maxamuud ayaa diiday in ciidamo laga qaaday Muqdisho la geeyo magaalada Dhuusamareeb, isla markaana uu jiro khilaaf ka dhex taagan Kheyre iyo madaxda Ahlus Sunna ee ku sugan Dhuusamareeb. waxaa socda dadaalo la doonayo in ciidamada garoonka haysta laga saaro si dib loogu soo celiyo dhaqdhaqaaqii maalinlaha ahaa ee ka socday garoonka.